waxaan leeyahay wiilasha ciidamada khaasatan wiilka saakay saadiqaa lagugu bedelo la yiri maxaa lagu sameeyey waryaa hooy farxaanow dhiiqaa lugaha lagu geliyo waa musqul god qodan oo wasakh ku jirtaa lugaha lagu geliyo ha gelin maandhow gacal iyo ha gelin waa wiil yaraa tahay mustaqbalaad leedahay 30 sano 40 sano 50 sano hor la cimrigaaga ka dhibna haddii ilaahay ku siiyo ha gelin dhiiqada nimanaa ku jiro nimanaa ku jira dhiiqada ha la gelin nimaa ka baxay saakay ka bax adigana ha gelin darajo ma aha maxamed cabdullaahi farmaajo iska male darajada maxaan ku yidhahday kii kale xuu ahay xijaar iska male darajada qaanuuna iska leh sharciyaa leh ay ku timaadaa ay ku jirtaa ay ku ixtiraaman tahay qof afkiis iyo rabitaankiis maaha darajada dalkan hore uu darajo kuu siiyey maanta meesha ay joogto meesheedii maaha ha ku dhumin waddadaas genaraal odowaa waa la leeyahay militarigaa lasoo dhaqaajinaa intaa laga keenaa kanaa laga keenaa genaraalow odowaayow wiilkaygiyow maanta maalintaad waxaas aqbali lahayd ma aha saadiq john waddada uu fura kuu furan waddo kale oo kuu furan ma jirto mid kastoo kalood qaado haddaad aamusad gurigaa gadaal u gasho xataa eedaysanaad tahay maanta waddada kuu furan inaad iscaddayso ood sheegto tiraa dastuurka jamhuuriyadda loo hoggaansamaa waaye karaamo iyo sharaf kaasay kugu jirtaa mid kale kuguma jirto dhammaan waa sida saraakiisha ciidamado dhan waa sida aniga xijaar iyo fahad waxba la hadli maayo laakiin waddadaasaa u furan sarkaal kasta oo rajo iska qabo waddadaasaa u furan ehelka iyo qaraabada iyo asxaabta farxaan iyo odowaa iyo ku dar muxuu ahay xajaarkiisa iyo kulli iyo inta ka hoosayso dhanna waxaan leenahay u caqli celiya wiilashiinna dhaldhalaalku yaanu sirin shalaa lagu hodmaa ragga ku baaba'een ku magac beeleen ku karaamo waayeen ku sharaf beeleen war ha ku ceeboobina wiilashiinna u caqli celiya la hadla waddadaas qalloocan oo qaldan yaanay marin waa dhammaanteen waa wiilasheenna waa uga digaynaa waana uga caqli celinayna waana ka waaninayna intaas kadib waxaan rabaa inaan hadalkii macaay oo akhyaarta iga horreysay itir aan ku soo gabagabeeyo meesha loo dhammaa doono waa meeshaas bes inaan deg deg u tagno iyo annagoo nadiifa inaan tagno choice ama khiyaar ah waa leenahay khiyaarka kalena inaan daahno oo annagoo rifrifan aan tagno oo bahdilno karaamadii naga tagtay aan tagnane waa khiyaar kale ayadana waana wax la kala dooran karo xumaanta ragaa dooran karo laakiin annaga tan wanaagsanaan doorannay ayadaan u taagannahay waxaan leenahay yaanan degdegin wakhtigu waa sii socdaa ha laysku yimaado ha la heshiiyo doorasho ha la aado dimuqraadiyadda ha la xoojiyo rabitaanka dadka soomaaliyeed ha la dhowro xukunka ilaahaa bixiya qofkii uu siiyaa leh qofkii kalena ma laha waddadii lagu maraayey oo lagu tegayana waddadaas la tilmaamay waaye taasaa furan waddo kaloo furan ma laha aad iyo aadaa umahadsan tihiin mar kale waxaan hambalyo u dirayaa saadaq waxaan hambalyo u dirayaa saraakiisha faraha badan ee la joogta ee la shaqaysay ee ilaahay hadda garbihiisa fadhida ee la qabta muxuu ahay ra'yigaas kuwa kalena waxaan ugu baaqayaa inay soo raacaan aad iyo aadaa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsan yahay prime minister anagoo ku hadlaya dhammaan magacooda 12 abriil waa maalintii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waay waa u hambalyaynaynaa meel kastoo joogaan maanta waa maalintaas weyn oo macnaha leh oo maalintii ciidanka la aasaasay 71 sano miya 61 sano ay ka soo wareegtay waay booliiskaa horreeyey 61 sano ay ka soo wareegtay waay maalin weyn waay maalin taariikha waay inaa maanta au qof walba yiraa maalintii hambalyada ciidamada ay ahayd ayaan aniguna u istaagay dastuurka inaan ilaaliyo waxaan ku dabaaldegnay ilaalinta iyo kor u haynta dastuurka dalka maalintaa dhihi lahaydeen waaye dhaha allah tawfiiqdaasna allah idin waafajiyo hambalyana waa idin leenahay adika iyo xaasaskiina iyo dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu